السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحان دمان بوغادين يا حضور كافر بدن مشايخ ذا مامور كميدو وبسيطة قبل كبنادر مامولياش اسكولة مامولياش على مدحدة كسعة جامعة هدالك انت هالكان كسوغان أرديدا قروح بدن والدين تدفت إلى جوغا وارباهينتا guud ahaan waxaan idin leeyahay sharaf weyn ayay inoo tahay inaan weynayno ka qayb galno bogaadino dhiirigelino jiilkan aanu jecel nahay inay dalka wax u qabtaan waxna qabsadaan waxaa runtii wax aad loogu farxo ah in xoog intaan leeg uu nagu jiro awood intaan leeg aan leenahay intaanoo qof aan kulmi karno danaheena ka tashan karno wax badan soo kordhi karno waxaan aaminsanahay waxaan fuulnay waddadii guusha waxaan raacnay tareenkii guusha waxaan allah subxaanahu wa tacaala kaga rajaynaynaa in uu inoo hirgeliyo guulaha iyo dilooyinka aan leenahay waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa una bogaadinayaa midowga iskuullada gobolka banaadir run ahaantii الأستاذ عبد القادر محمد حسن الأستاذ فارح يتيمك كلامه وعن سنة ووضع شقيني انت هوشان اي سعوتي تابقلين تيدا ينورين تيدا يقرحين تيدا يجود يكوب حبا عن سيوة بالديرة سيكاشاني وحان لي هيرونتي وينوها هاتي الله سبحانه وتعالى وينوه قدر بذلك إنه سوقار هالكان وحان رضا مركا إن أنا بارو أرضي دينا الصوماليات والدين الصوماليات waxaa xil weyn inaga saaran inaan runtii waqti badan gelino waqti badanna u urno in ardaydeena ay soo gaaraan meesha aan la jecelnahay waxbarashadu waxay ku bartaa in aad kufto haddana aad istaagto wixii dhacay ee ahaa in gobolka banaadir meel aysan u qalmin la taajiyey waxaan qabaa inay suurtagal tahay laga bilaabo midowgan iyo dadaalkan inaan gaari karno tusaale cad u noqon karno inaan soo istaajino ardaydeena Soomaaliyeed inay yihiin kuwa mudan matalaad saxan u istaagi kara dalkooda waan aaminsanahay meesha la idinka filayo inaad ka sareydaan waxaan insha Allah taala rajaynayaa sanadkan maadaama aan u midownay inaan cadayno waxaan u qabanno iyo meesha aan gaari karno inaad tusaale cad u noqon doontaan biri haddii Allah awood leeymo imtixaanka sanadkan soo socda inuu noqdo iskoorkii ugu dheeraay abad dunida ka dhaca ee Soomaaliya ay gasho waxaan aniga run ahaantii taariikhda aan dib mar walba ugu xusaa Soomaalida markay dalka ka baxaan ee jaamacadaha dunida tagaan gaar ahaan ardayda ka baxday gobolkan Banaadir waxay iskoor aad u sareeya ka galaan kaalmaha jaamacadaha ugu adag dunida waxaan idin leeyahay marka yaan waxba la niyad jabin waad ka adagtiin meesha la idinka filay waalidiinta waxaan leeyahay waxaad waqti u hurtaa inaad la qaadato ubadkaaga waxaad ogaataa baahidiisa hoose waxaad la tashataa khubarada waxbarashada ee ku howlan meesha uu gaari karana waan arki doonaa haddii ilaahay midowgana waxaan leeyahay waad istaagteen waan idinla istaagnay idinkama hari doono ilaa aad ka gaartaan meesha aad rabtaan maamulka jaamacadda Balaasma oo u dhan yahay guud ahaan maamulka ugu sareeyay gudoomiyaha jaamacadda ilaa xubnaha hoose waxay u istaageen in hawshaan aad u jeedaan quruxda badan ee hirgasho waxay jaamacadda ku bixiday lacag ku dhow $7,000 taabagelinta mashruucan aad u jeedaan kulankan maanta inuu qabsoomo waxa inta loo bixinay waa maxay waa in gobolka ardaydiisu ay noqdaan dad matala doorka ay ku fadhiyaan waxaan halkan ka ballan qaadaynaa inaan juhdi gaar ah ku bixin doono iskuulada ku soo booqan doono talada iyo tusaalaha aad ku guuleysan kartaan aan qayb ka noqon doono waxaan ugu dambeynay idin leenahay ardayda kaalmaha sanadkan gala waxay leeyihiin kuraas gooniya oo jaamacadda Balaasma ugu tala gashay waxaa jiri doona daaq waxbarasho oo 100 kursi ah
oo ardayda qaab online ku apply garay doonaan oo sanad walba la qabto sanadkii shanaadna garay waxaan rajaynayaa inaad qayb ka noqotaan u tartantaan guulaysataan guulaysa midowgana ha guulayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu